maalintii arbacadii ee shalayto ayaa markii ugu horeysay Somaliland iyo Soomaaliya ay si ka fool ah ugu kulmeen daartan inaga dambaysa dadka reer Somaliland iyo Soomaaliyaba ayaa wada hadalladan waxay sugayeen muddo ka badan 20 sanadood markood inaan u mahad celiyo dowladda UK iyo European Union iyo Norway oo arintan aad noola shaqeeyay waxaan kale toon rabaa inaan salaam shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan rabaa inaan idin sheego maanta waxa way muddo 20 sanadood markii ugu horeysay oo si official ah soo hor fariistaan xukuumadda Soomaaliya ka jirta TFG-da iyo Somaliland oo ay si official u bilaabaan inay wada hadlaan ayadoo ay ahayd 2 maalmood dood dheer oo socotay waxaa isla soo gunaanaday inay noqoto markii ugu horeysay oo la furo wada hadal waxaan runtii ku dhamaaday hadalkaas afgarad fiican iyo faham aad u wanaagsan si fiican baan la isu fahmay waxaan rajaynaynaa inay sii socoto oo meesheed ka sii socoto hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa inaan ku baaqno shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay kaalin ka geystaan international community labaduba ay kaalin ka geystaan sidii loo wadi lahaa arintaas oo loo socodsiin lahaa waxaa ahayd dadka meesha isugu yimid laba technical committee ah oo ay kala hogaaminayeen dhinaca Somaliland maxamed Cabdullaahi uu hogaaminay dhinaca dowladda TFG-da anigu aan hogaaminay oo laga wada hadlayay qaabkii loo abuuri lahaa wada hadalka iyo ajendayaasha qaabkii loo sadgareyn lahaa wada hadalku sii socon lahaa sidaad ogtiina qodobada meesha soo baxay waxa kamid ah in madaxda sare ay arintan ay review ku sameeyso ka bacdina ay endorsement u sameeyaan waxayna ahayd runtii moment aad u fiican waqti fiicanna waa soo helnay oo aan si fiican wada hadli karno meel fiicanna waa waa joognay run ahaantii anaga wada faraxsan bay noo dhamaatay waxaan rajaynayaa Ilaahay ka rajaynaynaa inay noqoto arrin talaabo fiican noqota oo sii socota waqti badanna inay qaadan doonto u malayn maayo laakiin waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay in meesha ay joogto laga sii wado waxaan rajaynaynaa wixii anaga dhinacayaga ah inaan u diyaar garowno qaabkii aan kaalin uga geysan lahayn aad iyo aad baan u mahadsantihiin bismillahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa waxaan jecelahay in aan halkan maadnaq uga soo jeediyo dowladda Britain dalka Norway iyo ururka midowga Yurub oo runtii hawl wanaagsan ka galay tigelinta iyo taageerada kulankan wada hadalka ah ee labada maalmood u socday halkan Somaliland iyo Soomaaliya waxaan aragnaa inuu yahay kulan wada hadal ah oo maanta bilaabmay maaha mid dhamaaday waxaan rajaynaynaa in wada hadalladaasi ay muddo socdaan lagana gaaro natiijooyin wanaagsan oo labada geesoodba waxtar u leh kulankani waxa kulan hordhaca sidii hore loo sheegay nuxurkii ka soo baxayna waxa akhriday Sali oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda waxa ka soo baxay 8 qodob oo leedin qaybinaya heli doontaan beesha caalamka iyo Somaliland iyo Soomaaliyana la wada siin doono marka horta nuxurkii labada maalmood ee wada hadalka halkaas ku cadyahay hase yeeshee ujeedada fadhigan ugu horeeyay shalay maanta socday waxa ahayd in laga hadlo oo lagu heshiiyo qaabka ay labada geesood ay wada hadlayaan waxaanu sidii wasiirku imika cadeeyay aanu ku heshiinay in qaabka wada hadallada mustaqbalka ee labada geesood in uu ahaado Somaliland oo dhinaca iyo maamulka kumeel gaarka ee Soomaaliya hadda ama hadii isbedel ku dhaco dawladda kale ka dambaysa oo dhinaca waxa laga wada hadlayaa waxa weeye arrimo fara badan oo siyaasad leh oo nabadgelyo leh oo arrimo kale leh oo labada dal ka dhaxeeya in labada geesood in laga wada hadlo waxaan u rajaynaynaa Soomaaliya in lagu guuleysto geedi socodka xagga nabadgelyada ee muddada dheer socday waxaan taageersanahay in qaabkii hore ee jiray laga guuro oo nidaam dawli ah oo degan oo fududeyn kara markaa wada hadalka labada geesood in uu dhasho oo beesha caalamkuna ay taageerto Somaliland sida laga warqabo kama mid aha road mapka waxa loo yaqaan ama saxiixayaasha waa arrimo runtii Soomaaliya u khaasa oo jecelahay inaan taageero waliba ka bixino sidii loogu najixi lahaa himiladii Somaliland madax banaaniduna isbedel kuma sameeyay wada hadallada labada geesood oo kuwaanu jecelahay in aanu kamida dhalino hadii alla idmo aad baan u soo dhaweynaa wada hadalkaasi maanta bilaabmay waa wada hadal sidaan sheegay hore u socon doona
waxaanu jecelahay beesha caalamku inay taageero imika ay ka bixisay iyo mid ka badanba ay ka bixiso si labada geesood ay danaha khaaska u ah iyo arrimahooda ay uga tashadaan oo ay ku dhamaystaan si wanaagsan oo nabadgelya labadan guddi ayaa ahaa guddiyo farsamo oo soo qaabaynaya ajandaha ama qodobada marka ugu dambaysa laga soo doodayo waxaana ka soo baxay 8 qodob oo tibaaxaya. Following the commitments in the London and Istanbul communiques that the international community would support. labada dhinacba waxay ku heshiiyeen in wada hadalladu ay sii socdaan isla markaana ay u dhaxeeyaan Somaliland iyo Soomaaliya ama cidda bedesha dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya iyo Somaliland iyadoo la tixgelinayo heshiisyadii qodobkii 6 ee shirkii London iyo qodobkii 10 ee shirkii Istanbul ee wadankaasi Turkiga. qodobka labaad iyo isna waxa in si guud ay uga digtoonaadaan labada dhinacba wax kasta oo carqaladaynaya si socodka wada hadallada. in mar kasta labada dhinacba ay diyaar u ahaadaan si wadida wada hadallada isla markaana sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagala ay u kulmaan labada madaxweyne si ay u eegaan horumarka dhinaca wada hadallada. waxay isku raaceen inay si weyn ugala shaqeeyaan beesha caalamka dhinacyada horumarinta iyo kaalmada aadminimo ee ay u baahan yihiin shucuubta Somaliland iyo Soomaaliya. waxay isku raaceen inay si wada jira ula dagaalamaan argagixisada kooxaha xag jira iyo dhagar qabayaasha halista ah ama dhagaraha halista ah. waxay isku raaceen in lala wada dagaalamo burcad badeed ah iyadoo lagula dagaalamayo badda iyo bariga intaba fal dhagareedada kale ee ka dhaca badaha kalluumaysatada sharci darrada ah iyo wasakhda iyo sunta lagu aasayo badaha iyo bariga intaba inay si wada jira uga soo wada horjeestaan. waxay kale oo ku celiyeen inaan la kordhin karin waqtiga dawladda ku meel gaarka ah ee ku eg 20ka bisha August. maanta halkan lagu soo gabagabeeyay shirkii ugu horeeyay ee Somaliland iyo Soomaaliya si toos ah u dhaxmara oo dhaxmarayay laba guddi oo ka kooban 5 xubnood oo qolana ay ka timi Hargeysa qolana Muqdisho. waftiga qaran ee Somaliland waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Ucid Faysal Cali Waraabe oo aan jeclahay bal inaan weydiiyo bal waxaad ka warantaa guud ahaan sidaad u aragto. bismillaahir rahmaanir rahiim wasalaatu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. waxa weeye guul baynu gaarnay alxamdulillaah rabbil caalamiin. waxa weeye waxaan la kulanay dad maskax furan ma garanaysaa ujeedadeena iyo dhibaatada inagu dhacday iyo waxaan doonayba inta fahamsan. marka waxa weeye waxa la yiri hada dhiiri gashid marba lug baa la saaraa. marka waxaan arkaa in maanta horta lugta hore la baxnay oo sumadii aynu lahayn ma garanaysaa inaynu 60kii dees ku tagnay laba qaybood amba laba dal oo haddana wada hadli kara saas miisaankaas oo kala inaynu maanta aynu soo xaqiijinay laynoo naqare weeye. marka waxaan ku koobnay hadalkaygii in ay labada waaxood saa u shiraan oo cid kaloo dacka fuula iyo maqaas ciyaarta dhabqiya inaan la yeelan sida dawladdan Soomaaliya ee hadda taagan TFG layraa iyo tii bedesha daalayraa inaynu si siman wada hadallo daalayraa. ma jiraan waqti go'an oo guddiga farsamo ah diyaarisay. waxa weeye waxaan jecelahay si dhaqso ah in arrintan anagu imkaan technical u keenay iyo frameworkan inaan horta madaxda labada dal ay iyaguna endorse gareeyaan si wax noqdo document laga duulo waa dhowto markay qoladan dawladda yeeshaan iyaga wixii ka dambeeya waa laga bilaabo hadallada ayaan filinay dhacaan. imakana waxaa hortiina taagan wasiirka madaxtooyada Somaliland oo isaguna ka mid ahaa guddigii qaran ee ka soo qayb galay wada hadallada ka bilaabmay maanta lagu soo gabagabeeyay magaaladan London. waxaan jeclahay markaa bal xirsiinaan marka ugu horeysa weydiiyo bal waxaad ka warantaa guud ahaan maxaa faa'iideen. guud ahaan walaal waxaan dee faa'iidnay wada hadalladu waxay ahaayeen runtii higsiga Somaliland ay higsanaysay inay hesho madax banaani ayaa waxay ku xidhan yihiin in sometimes in laga wada hadlo oo laga soo dhiraandhiriyo haday suuragal noqoto haddii qoladan laga soo dhiraandhirin waayeen in cid kasta oo ay dan inaga xidhan tahay laga dhiraandhiriyo madax banaanida Somaliland iyo qarankan himiladiisii iyo wixii uu doonayay. marka wada hadalladu inay furmaan waxa weeyaan waxaan isleenahay waad gar leedihiinoo waxay ahayd himiladeennii aynu sugaynay wixii dariiqaynu maraynay bay ahayd ay ka mid tahay ma kuma qaydnayada laakiinse waa ka mid. xirsi maxaad u malaynaysaa waxaa jirtay imika waxaad moodaa in bisayl siyaasadeed muuqdo waxaa jirtay waqti aan dadka reer Somaliland lagaba dhaadhicin karaynin ama la isku xidhxidhi jiray waxa uu la kulmay cid ka timi Soomaaliya. maxaa isbedelay baad u malaynaysaa ma waqtigaa keenay bisaylkan.
dabcan sidaad sheegtay waqtiguna bisilka wuu keenaa waxaana maalin bana meel baa taagan tahay maanta meeshaynu taaganahay waxa weeye inaynu ictiraafkeennii raadino cid walba oo aynu ka raadin karana ka raadino waxaana runtii ka mida tallaabo hore loo qaaday in loo wada hadlo somalilan iyo soomaaliya oo laba madax oo isleeg oo isku mida oo sidii ku binaysan 60kii loo midoobay ku binaysan in loo wada hadlaa waa tallaabo hore loo qaaday baan aaminsana waxaad moodaa erey kastoo la soo qaado in lagu qiimeeyo la yidhahdo waa inay international communitygu hirgeliyaan oo arrinta wax ka qabtaan taasina waxay keentaa dib u dhac fara badan idinku diyaar ma u tihiin inaad iskiin u samaysaan wada hadallo aad sii wadaan international community waana loo baahan yahay xagna dee loogama bana waa loo baahan yahay waxa looga baahan yahay hadday tahay facility-ga iyo hadday tahay markhaatigaba markhaati idin dhexeeya oo idin dhex yani marka aad wada hadashaan wixii aad ku heshiiseen idin ogaada wax waliba waa inay marag leeyihiin oo waxaan markhaati lahayn hadhanba Soomaali hore odhan jirtay marka marag way noqdeen laakiinse markaan wada hadlaynay wax international community-ga oo faragelin nagu lahaa ama nagu dhex jiray ma jirin waa la isweydiiyey hadhowta sida loo sii wadayo dawladaha loo doorbidayo guddiga loo saarayo waxyaalaha noocaasa waxayse insha allahu tacaala iman doonaan xilliyada dambe ee wada hadallada suucan u furmaan hadda gogoldhig buu ahaa waxaana la isla gartay meesha lagu wada hadlayo in la isla qaato hadday tahay ingiriiska hadday tahay meesha la yiraahdo Norway hadday tahay meesha la yiraahdo Switzerland hadday tahay carabaha hadba kii suurto gala meelo noocaasa ayaa la taataabtay laakiin si aan weli loogu aamin hadba tii la isla qaato waxaase la isla gartay waqtiga la wada hadlayo in madaxweynayaashu go'aamiyaan xilliga ay isu yimaadaan go'aamiyaan waqtiga la wada hadlayo ee wada hadalka marka qodobada lagu heshiin la geeyo sida loo wada hadlayna waxa la isla gartay in Soomaaliya iyo Soomaaliya loo wada hadlo marka qodobada la isla garin waxay framework ama gogoldhigii naloo diray ee ahayd in laga bilaabo oo ahaan doonta halka tallaabada laga bilaabi doono wada hadalka aad baad mahadsantahay intaasi waxaanu ku soo gabagabaynay markaa barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa waxyaabihii ka soo baxay shirkii lagu qabtay waddankan Ingiriiska ay isku hor fadhiyeen Somaliland iyo Soomaaliya